بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن oo wanaagsan ahbaabi waa markan iyo barnaamijkeeni ogaalka dhacdooyinka dunida. Muuqaalkan waa muuqaal ka duwan muuqaaladeennii hore. Waxaan halkan ku soo qaadan doonaa sheeko dhacday oo la yaab leh taas oo ku dhacday nin oday ah oo 40 jir ah lana yiraahdo John Senior kaas oo ahaa mid aan lahayn wax hooya no homeless no jobless no everything aan waxba haba yaraatee aan waxba bahaysan ninkaasi odayga ah. taas waxa uga sii darnaa ninkan odayga maadaama uu salahayn wax hooy ah iyo wax shaqo taga iyo meel uu seexdo midna basic needs-ka iyo aasaaska nolosha qofkaba ay ahaayeen mid ka maqan. ninkan odayga ah ayaa soo darbi chief iskaga ahaan jiray ayaa wuxuu bilaabay inuu magaalooyinka dhex mushaaxo oo ninkan uu iska socdo. ninkan ayaa si lama filaan ah wuxuu isku arkay isagoo jooga isbitaalka. waxa uu galay shil aad u xun. natiijadiisu shirkaas laakiin waxay ahayd mid aad u wanaagsan. nasiibkiisa ayaa wanaagsanaa. waxa uu halkaas ka soo gaaray cafis isaga oo iska cafiyay qofkii shilkaas baawur u geystay isagoo aan waxba kala soconin halka uu u socdo ma ogeyn iyo halka uu ka yimid labadaba. ayuu bilaabay inuu wadooyinka uu iska dhex mushaaxo ilaa uu ku biiray ama uu gaaray hooy ay ku jiraan dad kale oo derbi chief ah oo sida isagoo kale ah. ileen derbi chief qofku markuu yahay derbi chief kale baa fahmi kara xaaladiisa. laakiin isla markiiba waxaa la ogaaday inuu ninkan leeyahay hibada xagga fanka ama heesaha. waxaa lagu booriyey inuu nolol maalmeedkiisa ka soo saarto wadooyinka highway-ga ah ee magaaladii uu ku noolaa. wadooyinka ayuu kala duwan ee magaalada ayuu ku soo bandhigi jiray halkaas oo ay dadku uga codsan jireen inuu u heeso kadibna ay talooyin halkaas ay ku siin jireen ama ay ugu biirinayaan inuu heeso. muddo kadib nasiib wanaagiisa qof ayaa ku casuumay una sheegay inuu arooskiisa uu ka heesi doono. qof ayaa sidaas ku casuumay oo u sheegay inuu arooskiisa ka heesi doono. taas si aan uusa ogeyn ayuu isku bedelay noloshiisa derbi chiefnimada ahayd taas oo noqday mid labista oo wanaagsan. muuqaalkan aad u daawo wixii ku soo jiitana commentiga dhex ku soo sii. sheekadan iyo sheekooyin kale haddii aad jeceshahayna fadlan channelka subscribe oo nala joog oo commenti caafimaad qabana soo sii. nabaday.